aynu ku bilownay xaaladda magaalada Boosaaso ayaa weli cakiran xilli maamulka Puntland ay sheegeen inay diyaar u yihiin xabad joojin iyo wada hadal ka dhaqan gala magaalada Boosaaso dhanka kale ciidamada PSF oo markii ugu horeysay war ka soo saaray dagaalka maalintii labaad ka socda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari haddaba wararkaasi waxay noo soo koobaya wariyaheena Cabdinaasir Al-Cadaala iyadoo tan iyo shalay ilaa iyo saaka ee dagaalo xooggan ay ka socdeen magaalada Boosaaso ee xarunta dowlad goboleedka Puntland oo xarunta ganacsiga dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa arrintaasi markii ugu horeysay ka hadlay madaxtooyada Puntland iyadoo war rasmi ah ka soo saartay dagaalkaasi tan iyo shalay ilaa iyo saakay ka socday magaalada Boosaaso wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa sheegay in ayaa ka warbixiyay dagaaladii halkaasi ka dhacay waxaana sidoo kale uu ka hadlay dadkii shacabka ahay ee ku geeriyooday intii dagaaladu ay socdeen isagoo si gaar ah kaga hadlay imaam ku geeriyooday masjida kaasi oo uu ku habsaday hoobiye waxaana sidoo kale wasiirku uu ka warbixiyay dadkii ku barakacay dagaalada tan iyo shalay ilaa iyo saakay ka socday magaalada Boosaaso marka ugu horeysa dhanka kale ciidamada PSF-ta Puntland ayaa markii ugu horeysay waxa dhankooda ay soo saareen war saxaafeed ay ku faahfaahinayaan dagaaladii ay la galeen ciidanka ka socday dhanka iyo madaxtooyada Puntland kuwaasi oo ay sheegeen in lagu soo qaaday weerar gardarro ah oo kaga yimid madaxtooyada Puntland walaalaha ka soo baxay PSF-ta ayaa lagu sheegay in mas'uuliyadda dagaalkaasi iyo cawaaqib xumada ka dhalata iyo sidoo kale dadkii ku barakacay ay mas'uuliyadiisa qaadayso madaxtooyada Puntland oo sida ay sheegeen ku soo qaaday weerar walaalka ka soo baxay PSF-ta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in marnaba aysan PSF-tu diyaar u ahayn inay dagaal ku gasho magaalada Boosaaso waxaana sidoo kale intaa ay ku dareen in haatan ay loo baahan yahay in la joojiyo dagaalka dhankoodana ay diyaar u yihiin bismillaah alxamdulillaah maantay oo ah maalin arbaca ah 22-ka bisha Diseembar 2021 waxaan ku sugannahay magaalada Boosaaso marka ugu horeysa waxaan uga tacsiyeynayaa shacabweynaha ay dhibaatadu ka soo gaartay magaalada Boosaaso rasaastii faraha badnayd ee hoobiyaha iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan ahayd oo ay ridayeen nimanka shuftada ah oo fallaagada ah oo la socda agaasimihii hore ee ciidanka PSF-ta ee xilka laga qaaday dhibaatada ay shacabka u geysteen oo keenay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh dad masaakiin ah oo guryahoodii jooga iyo qaybtood xitaa masaajidadii dadkii ku tukanayay ay ku dhibaateeyeen uga tacsiyeynayna shacabka inta ku dhimatay waxaanu leenahay Allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna waxaanu leenahay Allah u boogadhayo saa la socotaanba 24kii bishii hore ee November waxaa soo baxday digrii madaxweyne oo xilka lagaga qaaday agaasimihii hore ee ciidanka PSF-ta Maxamuud Cismaan Cabdullaahi iyadoo loo magacaabay agaasimo cusub Generaal Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Khayr waxaa timi in uu u hoggaansami waayey in uu xilka wareejiyo agaasimihii hore Maxamuud markay arrintaasi dhacdayna ciidamadii PSF-ta ahaa oo ahaa ciidamo diyaarsan oo tababaran oo u hoggaansan dawladda waxa ay ka yimaadeen xaruntii ay markaa joogeen waxaana ay yimaadeen xarunta cusub ee ciidanka PSF-ta ah iyo agaasimaha cusub Generaal Maxamed Amiin waxa uu bilaabay markaa agaasimihii hore markay ciidankii ka yimaadeen inuu urursado maleeshiyaad qowlaysata ah oo uu markaa ku talagalay in ay difaac u noqdaan dadkana uu ku laayo ilaa iyo taariikhdaas waxaanu ku sugannahay magaalada Boosaaso waxaanu u nimi inaannu arrintaas si silmi ah ku dhammayno oo xilkaa aanu ku kala wareejinno laakiin waxa ayaan darro ah in uu nagu gacan seeray agaasimihii hore ee ciidanka PSF-ta xilka laga qaaday iyo inta la aragti ah waxaanu ogolaanay cid walba oo waanwaan nabadeed arrintaa ka gashay hadday tahay isimada hadday tahay culimaauddiinka hadday tahay dhaqanka qaybahooda kala duwan hadday tahay ganacsatada iyo cid kasta oo hawshaa isu xilqaantay waa la fariisannay waa soo dhoweynay muddo bil ku dhow waxaanu diyaar u nahay
in arrintaa nabad lagu dhammeeyo ninkaa dhallinyarada ah oo khaldamay oo sharciyaddii iyo nidaamkii ka hor yimina loo caqli celiyo halkaa inuu khaladka uu ku jiro ka noqdo. arrintaa waxaad mooddaa in wax natiijo ah ilaa haddeer aysan ka iman iyadoo halkaa hawshu fadhido. maalintii shalay ahayd ciidamada amniga magaalada Boosaaso ka howlgelayay oo ku jiray shaqadoodii routiiniga ahaa checkpointyadii amniga ay ku sugayeenna ku shaqaynayay waxaa weerar ku bilaabay nimanka qowlaysatada ah oo agaasimaha hore xilka laga qaaday iyo ragga la socda ah. waxa ay ciidankii ku bilaabeen hoobiye iyo rasaas tiiro dheer iyo mid tiiro dhexe ah weerar bay ciidanka ku soo qaadeen. weerarka khasaare ciidanka ugu geysteen 2 askari baa ku dhintay hawsha iyo weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada Allah u naxariisto. dhowr askari oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. waxaa la mid ahayd inay meel walba ay hoobiye iyo qoryo jiib ah iyo qoryo biiten ah iyo rasaasa qaybaheeda kala duwan magaaladoo dhan inay ku tuureen. meelo beera ah oo dadku ku nastaan baa dad ku dhinteen, masaajidadii baa dadku ku dhinteen, suuqyadii bay ku dhinteen, hoteeladii iyo shacabku meelahay isugu iman jireen oo dhan waxa ay la dhaceen hoobiye. waxa ay ku tuureen dekada, waxa ay ku tuureen meel kasta oo ummadda tan u ahayd lama huraan iyo halbowlo u ahayd. waxaa halkaa marka ka muuqata inay ahaayeen niman isku bahaystay isu urursaday inay shacabkan dhibaateeyaan, barakiciyaan, dawladnimada iyo nidaamkana in ay jidgooye u dhigtaan oo ay ku noqdaan caqabad hortaagan. waad ogtiin Puntland waxa ay dhisan tahay 23 sano, dawladnimo iyo nidaam qaangaara ka jira. cid kasta oo sharciga iyo nidaamka ka hor timaadana marka ugu dambaysa waxa ay ku dambaysaa gacanta dawladda, waxa ayna la kulantaa ciqaab iyo waxa ay mudan tahay. annagoo marka turaynay oo shacabka faraha badan oo magaalada ku nool, magaaladuna magaaladii ganacsiga Puntland ay tahay, magaalooyinka halbowlaha u ah Puntland iyo Soomaaliya ay ka mid tahay, wax badan oo aanan ku dulqaadanayn baan ku dulqaadanay. laakiin waxaad aragtaa inay arrintii weli ay ku sii jiraan. shalay hadday arrintaas sameeyeen, maantay salaadii subax markii la tukadayna sidii si lamida waxa ay ku bilaabeen ciidanka weerar isugu jiray hoobiye iyo madaafiicda ka dhacaysa qoryaha jiibka iyo biitanka iyo rasaas kale oo kala duwan bay ku bilaabeen ilaa iyo xilliga aan haddeer idinla hadlayo. ciidanka sidii bay rasaasta ugu wadaan. ciidanka amarkii aan horey u siinay bay qabaan. shalay baanu siinay, maantaanu siinay, horey baanu u siinay inaysan xabad ku ridi karin ciday doonto ha noqotee cid aan iyaga markaa la dagaalamay. askari dhufays ku jiro, difaac ku jira, xabad isaga lagu dilayo, xabad uu kaga jawaabayo mooyee inuusan xabad kala ridi karin. ciidamadu sidii bay amar qaatayaal u yihiin. waxaa hoobiya dhacaya waad ogtihiinoo nidaamka iyo dawladda iyo sistamka ka jira awoodda ay leedahay oo ciidan iyo maanta intay la egtaa waa garan kartaan. qoryaha hoobiyaha ah oo ay magaalada la dhacayaan oo ciidanka ay la dhacayaan, madaxtooyada keliya waxaa laga yaabaa inay nambar fara badan ay taallo. ciidanka furintaa hore jooga waa laga yaabaa nambar fara badan inuu joogo, laakiin marna maanan ogolaan in hoobiye la isticmaalo, in qoryo waaweyn la isticmaalo. rasaasta noocyadeedii kala duwanaayoo dhan baa taala. rasaastii BM-ka, qoryihii BM-ka yaalla, suuyadii iyo taransatayaashii, biitannadii iyo jiibabkii, nooc walba oo rasaasi ay tahay baa waxa ay yaallaan magaalada Boosaaso oo gacanta dawladda ku jira. haddana saasoy tahay turid aanu shacabka iyo dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso aanu ugu turayno, maxaa yeelay waa shacabka iyagii mas'uuliyaddu naga saarayd aanu u dhaarannay. arrintaa annagoo xeerinayna baanu waxaanu ku koobnay in askariga dhufayska ku jira xabadda uu isku badbaadinayo marka ay xabadda tooska u timaado uu kaga jawaabayo mooyee inuusan xabad kala ridin. waxaan rabaa marka waxaa nala soo xiriiray isimo, culimaa'udiin, nabadoonno, ganacsato ilaa shalay intay hawsha tani socotay. shalayna waa u sheegnay, maantay saakayna waagu markuu barayay xabadda ay ciidan ku bilaabeen nimankan qowlaysatada ahna markay nala soo xiriireen waa u sheegnay. waxaanu idhi annagu sidii baanu diyaar u nahay, garyiigil u nahay. nimankaas qowlaysatada ah oo dhibaatada ku wada ummadda oo dawladnimadii iyo nidaamkii raba inay dilaaciyaan iyagaa u baahan in lala hadlo. annagu garyiigil baanu idin nahay. anytime aad noo timaadaanna diyaar baanu idin nahay. xabadda joojiya dhaha, kadibna wax allaale iyo wixii wada hadala iyo qorshe aad noola timaadaan annagu diyaar baanu idinku nahay. annagoo mar walba xeerineenna una turayna shacabka iyaga. waxaan marka halka baaq aan uga dirayaa cid kasta oo nabadda ka shaqaysa, cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa inaannu ka dawlad ahaan aannu hoggaansannahay, diyaarna u nahay. wax allaale iyo wixii wanaaga oo xabadda lagu joojinayo oo aan sharciga iyo nidaamka ka hor imanayn
diyaar baanu u nahay wax allaale wixii aan sharciga iyo dawladnimada iyo nidaamka aan ka hor imanayn oo xabadda lagu joojinayo oo shacabka dhibaatada iyo barakicinta lagaga joojinayo dhinacayaga ka dawlad ahaan diyaar baanu u nahay cid walba oo noogu timaadana waa qaabilaynaa waana la wadaynaa laakiin waxaanu rabnaa inaannu tilmaanno oo nalala arko inay shiddadu ka socoto dhinacaa nimanka qowlaysatada ah oo maleeshiyaadka ah isu urursaday inay dawladnimadana ay waxyeelayaan ummadda tan iyo shacabkanna ay qaybna laayaan qaybna ay barakiciyaan inta ay marka waawaani socoto inta ay dad u taagan yihiin inay nabad ka shaqeeyaan annagu diyaar baan u nahay maalinta ay dhammaato waawaantu oo dadka nabadda ka shaqaynaya ay u caal waayaan dawladdu tallaabo sharciya ka qaadaysaa tallaabo sharciya oo waafaqsan waxa ay ku jiraan bay ka qaadaysaa gacmaha ka laaban mayso arrintaa waxaan rabnaa in cod dheer aannu ku sheegno waxa ay ku jiraan hadday ka waantoobi waayaan hawshaana dadka ku dhex jira ay ku guulaysan waayaan inay xalliyaan waxaannu u sheegaynaa dawladdu inaysan gacmaha ka laaban doonin laakiin intay waanwaani socoto intay nabadani socoto intay cidi u taagan tahay arrintaa annagu diyaar baannu u nahay xagga iyagana xabadi ka dhici mayso xagga iyagana dagaal ka socon mayo dagaal naloogu yimaado oo nalagu soo weeraro hadduu dhacdana iska difaacayna intaasaan rabaa inaan cod dheer aannu ku sheegno aad baa u mahadsantihiin cid kasta oo wanaag isku dayday oo ka shaqaysayna waxaannu leenahay miisaanka xasanaadkiinna allaha ku daro aad baa u mahadsantihin wasalaamu calaykum